كويشينه لودينا كويشينه الله كويشينه انا wax ka fiican malaha fadhiiso فيديوغينا محاوة متقنين فرانك وايو هو يا برانك سمين ربا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barta YouTube-ka iyo Facebook aan ku leenahay Burhan Media TV. haddaba maanta mowduuceena waxaan uga hadli doonaa waa maxay branki, sidee reer galbeedku u isticmaalaan waxa loo yaqaano branki, iyo brankiyadii ugu foosho xumaa abid oo ay Soomaali samayso. haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka iyo Facebook-ga aan ku leeyahay, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad nagu soo biirto. aan idin xasuusiyo haddii ay ku tahay xilligii salaada, fadlan waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad muuqaalkan salaada kadib daawato. barankigu waa fajicin, kanixin ama argagixin qof kale, waana khiyaano fikriyan qaldan oo qof uu ku sameeyo qof kale, taasi oo sababaysa xanaaq, xishood, raaxo darro, wareer iyo weliba walbahaar. tusaale, gabar ayaa loogu yeeranayaa guri, kadib waxaa lagu sameynayaa wax ka fog anshaxa ilaa ay sheekadu tagto gacmo gacmaysi, kadibna waxaa sheekada lagu soo gabagabeynayaa waxa ay ahayd branki. haddaba goorma ayuu ku soo biiray brankigan caalamka? sanadkii 1987 waxaa branki call ah sameeyey nin caddaan ah, waxa uuna ku sameeyey qof kale isagoo u sheegay nin uu ugu yeeray Smith inuu dhintay. waxa uuna hadalka ku soo gabagabeeyey si dhaqsi ah u kaalay, ilaa markii dambena ay ku soo gabagabooday waxa ay ahayd branki. xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa la sameeyey isagoo oo dhowr nooc ah, laakiin waddanka Ingiriiska ayaa bilaabay in ay u sameeyaan muuqaal ahaan. Soomaalida gaar ahaan kuwa isticmaala barta loo yaqaan YouTube-ka waxa uu ku soo biiray brankiga 2015 kaasi uu sameeyey fanaan hadda caan ka ah Soomaaliya oo lagu magacaabo Lil Balil. waxa uu ku sameeyey aabihiis isagoo u sheegay in shaqaalaha gurigooda ka shaqeysa ay u leedahay. haddaba waa kana muuqaalkaas. يا هي ورق صوص وداقي ما كان نقدر كافلي خصوصي ولا سبب هي أريقات ورصاوة صوت عاوي لا إله إلا الله أنا والله بنت والله وقعت بنت والله كلمة تصص فيني وكلا marka intaas laga soo tago, waxaa si dardar ah u isticmaalay dhammaan YouTuberiska kuwaasi oo sameeyey isaga oo qaybo fara badan leh, laakiin tii ugu darneed waxaa sameeyey dhalinyaro kuwaas oo sameeyey ilaa dhowr nooc, waxa ayna ahaayeen kuwa ka fog anshaxa iyo weliba diinta. haddaba diinta islaamka maxay ka qabtaa in qof lagu sameeyo wax khiyaali ah ama dhammaadkoodu ay tahay been iyo wax la soo dhoobdhoobay? guud ahaan diinta islaamka waxay xarimtay in qof kale uu qof been u sheego isaga oo weliba ka nixinayo. haddaba waa kana Sheekh Cabdulxayi. waxaa halaag u sugnaaday ama waadi naareed u sugnaaday midka sheekada ku soo daraya been inuu dadka kaga qosolsiiyo oo dadku ay qoslaan darteed u been sheegahaya. laba jeer baa nabigu masna ku celiyo waylun lahu halaag baa u sugnaaday qof sheekaynaya oo sheekadii been ku soo daraya in dadku ay u sacbiyaan oo waxa weeyaan ay u qoslaan, intaas dantiisu ay tahay. beenta waxaa ka mid ah wax alla waxaa maqashid adoon hubsanin iska sheegtid. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. qofka dambi waxa ugu filan waxa uu maqlo oo kasta inuu iska sheego, wax kasta oo maqlo inuu faafiyo oo sheego. waa siday u badan yihiin maanta waxa weeyaan warbaahintu ay u badan tahay weeye. marka laga soo tago intaas, kii ugu yaabka badnaa waxaa sameeyey nin xasla ahaa kaasi oo wacay dumaashidiis isaga oo u sheegay
in ay kala tageen xaaskiisa, laakiin baaritaan dheer oo aan sameynay waxa aan ku ogaanay in uusan marka hore qabin xaas. maxaa yeelay ninku hadduu si kaftan ah u dhaho xaaskayga waan kala tagnay, si bareer ah way uga furan tahay. dadka qaar ayaa u arka in marka uu qofka uu sameeyo baranki uu muuqaalkiisa u helayo daawasho badan, halka kuwa kalena ay u arkaan in si fudud ay ku noqon karaan caan. haddaba daawade adigana daawanaya maxay kula tahay? intaasi ayaan ku soo gabagabeynay barnaamij yar oo aan uga hadlaynay barankiga iyo weliba waxa ay ka qabto diinta islaamka. daawade haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka iyo Facebook-ba aan ku leenahay, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad muuqaalka like garayso, page-kana aad follow garayso. mahadsanid.